Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeennii duurjoogta. Barnaamijkeennan duurjoogta oo ah taxanihii inoo socday iyo weliba webiga Luangwa ee dalkaasi Zambia. waana qaybteennii saddexaad. weli waxaynu ku guda jirnaa xuduudda Wamba ee raxanta libaaxyada ah. Loogisidu waxay iyaguna daba socdaan kolba halka uu caws yaallo. Raxantu iyada laftigeegu kama hadhayso oo waxay daba socotaa loogisida. xilligu waa jiilaal, webiguna waa guray. wax yar oo biyo ah ayaa ku sii hadhsan. loogisidii hadda maanta way soo biyo doonatay. maalin kasta loogisidu way cabtaa, waxaana ugu wacan cawska ay cunayso oo u dhaxeeya 30 ilaa 40 kiilo. maalin kasta in ka badan 300 oo loogisiya ayaa goobtani ka cabta una soo biyo doonata. waxay u soo socdaaleen 12 mayl meel u jirta ayay biyaha yar awgeed uga soo socdaaleen. loogisidu baahi weyn ayay u qabaan biyaha mar kasta iyo maalin kasta. waxay u baahan yihiin inay cabbaan. loogisi kasta waxay maalin walba cabtaa 9 galaan oo biyo ah. mid kastaana waxa uu qaataa waqtiga uu ku dhammaystiranayo ilaa muddo 6 daqiiqo ah. raxanta laftigeega waxaa isugu biiray gaajo iyo weliba harraad. iyaga laftigoogu waa cabbayaan oo agtooda ayay ka cabbayaan iyaga oo weliba jeedaalinaya loogisida. webiga waxaa ku nool jeerta, sidoo kale waxaan isna ka madhnayn oo mar walba jooga, oo goobtanina ay biyaha yari ku sii harsan yihiin. ku soo hadhay isaguna bahalka loo yaqaaniyo xaaska. waxa uu gaadhayaa dherarkiisu 16 fiit ayuu gaadhayaa. isaga laftigiisu maalin kasta waxa uu ku jiraa cunto raadis uu halkaasi ka raadsanayo duurjoogta imanaysa. raxanta Wamba waxay indhaha ku haysaa waa loogisida. kama madhna iyo xaasku laftigiisu wuxuu didinayaa loogisida. waxaanu ka kaxeeyey durba biyihii yaraa ee ay cabbayeen kadib markii uu is yidhi mid ka mid a qabso.
waxaanay loogisidu u dhaqaaqday ee dhanka duurka. Loogisidu mar kasta way urisaa libaaxa, waayo sayntiisa ayaa aad u urdheer. Sidoo kale way arkaysaa inta maalinkii oo dhan oo iyada laftigeegu indhaheeda waa ku arkaysaa. Weli loogisidu waxay ku sugan yihiin xuduudka Wamba. Meel yar oo biyo qabatin ah webiguna ka guray ayuu waxoogaa biyo ah ay ka cabayaan qaar ka mid ah loogisidu. Halkani waa meelaha khatarta ah ee uu libaaxuna jaaniska ka helo, dhurwaaga laftigiisuna jaaniska ka helo. Inta badan biyahan iyo daaqadan isku tegay waa qaar adag oo haddii uu galo loogisidu ay qaar galaan inta badan kama bixi karaan. Loogisidu markaad ka timaado cabitaanka biyaha way ku gelgelimaysataa, oo xataa hadday hesho meel ciiddu sii qoyan tahay way isku rogrogtaa oo sidii wax ku maydhanaya ayay samaysaa. Aad baanay u jeceshahay inay sidaa mar walba samayso. Loogisidii way dhaqaaqday, waxaanay u dhaqaaqday dhanka duurka. Raxantii Wambana waa daba dhaqaaqday oo iyadu meel ay kaga hadhaa ma jirto. Balse goobta waxaa lagaga tegay waa mid iyadu riman oo loogisida ka mid ah. Taasi waxay ka bixi kari weyday goobta ah ciidda iyo dhooqadu isugu jirtay culayskeeda awgeed. Hadda ayaa arkaysa inay ka bixi kari weyday goobta loogisidiina kaga tagtay. Waraabaha oo isagu aad u xariif ah ayaa wuxuu eegtaa halka ay joogaan haadu. Waxaan u gartaa halkaasi inay raqtaalo. Waxaan u soo dhaqaaqay dhankaas u soo dhaqaaqay. balse gabalkii baa dhacay oo habeenkii baa dumay. Halkii ayay weli loogisidii ay ku jirtaa oo aanay weli ka bixin.
midkan loogeysida ah ee riman waxaan nasiib u helay waraabaha. habeen bay noqotay, gabalkiina waa dhacay, waanu isu habar wacday, waxaanu ku cunay goobtaasuu ku cunay. raxantu weli waxay daba socdaa, waa la ogisidii oo iyadu sii durkaysa. caawa way ka baxday xuduuddii waamba oo waxay gashay xuduudda meyti. raxantan waamba meel ay kaga hadhaan ma jirto oo muddo 5 cisho ah ayaanay afkooda waxba gelin. gaajo aad u badanna waa ay qabaan. durba waxay bilaabeen weerarkoodii, kaasi oo ku aadan sidii ay caawa wax u heli lahaayeen. inta badan 90% habeenkii way ku guulaystaan ugaarsigooga raxanta ribaaxyada ahi, waayo waxay leeyihiin indho aad u cajiib badan oo habeenkii aanay ugaadha kale lahayn. waa tahay daawadayaal, qaybteennii 3aadna intaasaynu kaga tegaynaa. la soco qaybta 4aad oo inoo soo socota. tan iyo intaynu barnaamijka dambe ku kulmi doono waxaan leenahay dhammaantayo nabadgelyo.